Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa maamo Soomaali. Aad iyo aad ayaan idin salaamaya meel kastoo adduunyada dacaladeeda ka joogtiin. Soo dhawaada. Soomaaliya maanta doorasho ka socota. Doorashada ka socota Soomaaliya waxaa lacag aad u fara badan ku bixinaya dalka la yiraahdo Kenya. Oo daba taagan jaadkooda la joojiyay iyo arrintii dekada Soomaaliya. badda Soomaaliya si ay u qaataan oo maxkamadii iyo meel walba Soomaaliya ay kaga adkaatay. Arrinta labaad oo ku xigta waxa dawladda labaad oo lacagta ku bixinaysa waa Imaaraadka oo ayaduna rabto si aan Soomaaliya shidaalkeeda loo qodin badaha Soomaaliyana ay ugu hayso cunaqabatayn si aan dekedeeda suuqa caalamiga adduunka yihiin aan ugu soo wareegin Soomaaliya. waayo Dubai waa saxaaro laakiin Soomaaliya waxaa laga heli karaa qudaar iyo hilib dhaylo ah iyo badi iyo dalxiiskii iyo Afrika centraalka ay ku taalo wax lagu kala wareejisan karo oo ku yaala gobolada badda cas ee Soomaaliya bariga iyo waqooyiga Soomaaliya gobolkan bari iyo waqooyi Soomaaliya marka waxa weeyaan waa iyagu hadda ku haystaan xaaran marka waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed Soomaalidu ama reerka meel degan hadda wadankan anigu aan deganay dalkan Canada qoys baan ka ahay oo gurigaygana deganahay gurigayga waxaan ku dadaalaa oo family ku nahay family-gayagu inuu isaysto oo aan khilaaf iska ilaalino hadduu khilaaf yimaadana nagu xalliyo haddii laakiin qof kale bannaan intuu ka soo galo oo guriga ayaga ka dhex taliyo oo carruurtayda iyo anigana soo dhex galo oo carruurtayda lacag siiyo ama odaygayga lacag siiyo ama aniga lacag siiyo inuu reerkayaga burburo carruurtayda mid ka miduna uu ka yeelo ama aan anigu ka yeelo aakhir lacagtaasuna way dhammaanaysaa reerkayguna wuu burburayaa. Kenya waxa ay rabtaa Soomaaliya inay ka dhacdo doorasho ku salaysan qabaa'il oo ku salaysan warloriyada iyo siyaasiyiinta dawladda ka soo horjeeda mucaaradka waxaana ku bixinaysaa malaayiin dollar si doorasho qof iyo cod ah aanay uga dhicin dalka Soomaaliya. Soomaalida waxa weeyaan Soomaaliyana haddaan labada indhood la istiraynin Soomaaliya waxa ay soo martay inta noolana waa noolay anna waa noola waa ogsoonna Soomaaliya waxay rabtaa meesha ay maanta rabto joogto horay in looga sii wado oo aan gadaal loo noqonin. Soomaaliya warlord iyo qabaa'il hadduu meel soo gaarsiinayo horaan buu soo gaarsiin lahaa. Soomaaliya haddii ay corner yari ka maqan yahay Soomaaliya ma shaqayn karto. Soomaaliya waxay ku shaqayn kartaa Soomaaliya wada jirta Soomaaliya aayaheeda ka tashata Soomaaliya daneeda ka tashata. Soomaaliya adduunka marka loo fiiriyo waa hal family halka family gudahooda sida family-gayga oo kale waa la iska soo horjeestaa watalada waa la isku dhaafaa laakiin waa la heshiiyaa haddaan cid kalena soo dhexgelin reerkan problem iyo dhib midna ma soo dhexgelayo laakiin naag la guursaday ayaa ugu yar naag lala soo nin iyo naag isqabo carruur lahaa iska dhaaf wax kale naag kale marka la guursaday soo dhex gasho reerka noloshiisoo dhan way burburtaa waana isbedeshaa. maxaad u malaynaysaa marka ummadan qooldan oo Soomaaliya oo laba qaybood oo dhan ka maqan tahay khilaaf Kenya hadday intay lacag soo siiso dad Soomaali ayada in la isku jabiyo hore Ingiriiska u waan iyada in la isku jabiyo mooyaane Soomaaliya kaligeeda cidina ma jabin karto Maraykan iyo Ingiriis baa jabin waayeen laakiin marka iyada la iska horkeeno iyada sida qoryaha la isugu shido lacag la isugu dhiibo Soomaalidu waa u dhaqanaya caado inay isbaabi'iso jabisay dalkeedana iyada gacanteeda ku jabisay ku burburiso. haddaba waxaan idin la wadaagayaa sawirkan waa waxa maanta Falastiin ka socda
waad aragtaa gabadha xijaabanay nimanka yuhuudda ku dhegan yihiin waad aragtaa silaca ilmaha yaryar haysta waad aragtaa aabbaha ilmihiisi yaraa la jiidanayo waad aragtaa waxaase waa caruurtii iyo wiilashii falastiin waxa weeyaan waxani waa ilmo yar oo ama 10 jira ama 11 jira oo hubkaad aragtay ku korayaan askarta falastiin waad aragtaa garbaduubinta loo xiray sida loo wado loo silcinayo marka waxaan halkan kala hadlayaa waxa isbeber isbaray ayaa lagu buufinayaa wajigiisa ninkan waad aragtaa indhaha beber isbaray looga shubayaa waad aragtaa hooyadana waad aragtaa ilmaha yarna waad aragtaa marka waxa weeyaan ilmaha Soomaaliyeed waxa inuu sidaas u xirxirnaado ama hooyada Soomaaliyeed ka badbaadi kara sida in loo xirxirto ama beber isbaray wiilka Soomaaliga indhaha in sida looga shubo ka badbaadi kara ama cunuga yar aabbaha cunugiisa haysta aw ku nabadgeli karaa waa in Soomaali ay danteeda ka tashato waa in reerka Soomaali la yiraahdo shisheeye lacag uu bixiyay aanay lagu kala burburin oo lagu kala dilin waa in reerka Soomaali la yiraahdo qoyska Soomaaliyeed uu isagu dadka inta soo xirto gurigiisa gudihiisa ama ha isfeero ama ha isagsiyo ama waxa wada cuno ama waxa qaybsado ama say rabaan ha noqdaan laakiin qoyska Soomaaliyeed waa inuu dantiisa uu ka tashado haddii ataadiidaan oo Soomaalidu taasi waxay ku iman kartaa qof kasta oo Soomaali marka uu codkiisa ka bogto oo aniga iyo caruurtaydu aan kala dooranno laba qof oo kala duwan oo iyaguna qofkay rabaan ay doortaan aniguna qofkaan raba aan doorto sidaas ayay sida adduunyada kale oo dhan ka dhacdo Canada iyo Mareykan ayay Soomaalidu ku gaaraysaa meel waayo qof waliba markuu codkiisa oo xaq dhiibto wuu dawoobaya dhalinyarada Soomaaliyeed 75% Soomaalidu maanta noole waa dhalinyaro Soomaalidu sida u badan ma cimrida hadda xaalado especially Soomaalida dalka Soomaaliya joogta xaalado ku siman dawlad la'aan dhaqaale la'aan isbitaal la'aan iyo fikirka iyo nabadgelyo la'aanta ay colaadu leeyihiin marka waxa weeyaan anigu aragtidayda anab ahaan waxa aan u arkaa Soomaaliya inay u baahan tahay doorasho cod iyo qof ah ee aanay u baahnayn doorasho ama baarlamaan lacag lagu gatay ama odayaal qabaa'il oo lacag lagu soo gatay ama warlord Kenya lacag ka soo qaatay ama Dubai lacag ka soo qaatay oo dekadaaga raba ama Kenya lacag ka soo qaatay oo badaada raba inaad doorasho aad iigu rid ku dhihin waxaan hadalkaa ka wataa end of the day dhakhtar qayra wuxuu yiri dhakhtar haddaad ilmahaagu qofkaagu xanuunsado ama xaaskaagu xanuunsato ama ilmahaagu dhakhtarka u wanaagsan xanuunka haya ee specialista ugu wanaagsan ayaad la raadinaysaa ee ma raadinaysid dhakhtar aad isku qabiilteen oo qabaa'ilkaaga 30 sano Soomaali Saudi waqooyiga qabaa'il iyo doorasho qabaa'il ku dhisan way soo aragtay waxa loo baahan yahay Soomaaliya waa xanuunsanta 30 sano soo jirnay ninkii daweyn kara oo cudurkooda qalbiga iyo jirkaba ka daweyn kara in la doorto Soomaali qofkii isku wadi kara oo reerka isku hayn kara in la wado qof aan dareysanaynin oo dollar soo qaadan oo Dubai iyo Kenya midna xariir la lahayn in la doorto riyaalatigu waxay tahay carabu maanta Maxamed idaacadda Masar ayaa maalin dhaweed ka hadlayso la ii soo diray waxay dhahay Turkigu waxa uu dhisaya Soomaaliya waxaanu burburinayaa jaamacadda Carabta iyo wadamada Carabta isaga oo u suurtagelinaya Soomaaliya inay ciidan adag yeelato
gaaskeeda ay soo saarato soomaaliyana dekedaheeda iyadu maymaalato taas oo cunaqabatayn weyn ku soo socota ah badaha carabta iyo dhaqaalaha carabta waayo soomaaliya ilaahay baa waxay haysataa soomaaliya dhaqaalaha canada dhaqaalaha hantida canada hanti ka badan soomaaliya waxay ilaahay ka beeray summerland meel maalin walba samara oo aan baraf ka di'in soomaaliya waxay leedahay bad khayraad ka buuxo intay rabtana ay magaalo kasta dekad ka dhigan ilaa 30 magaalo ay dekad ka dhisan karto soomaaliya waxa ay haysataa xeebta ugu dheer dalka afrika oo dalxiis laga dhigi karo oo meel walba intaanu dalxiis ka dhigno aanu business ka furi karno oonu yaamajoomo iyo dhayladii iyo qudaartiyo firaasha dalkayaga ka timid aanu ka iibgeyn karno aanu ka gadi karna dalka iyo cuntada caafimaad qabta iyo fruits iyo vegetable iyo qorax iyo isbaramuudo iyo babay firaasha qofkii iska helaa oo soomaaliya waliba mooskeeda iyo babaygeeda iyo cambaheeda adduunka cuntadiisa way ka macaan yihiin soomaaliya waxay haysataa hanti xoolo ku saabsan iyo agriculture xoolo iyo beero hanti ku saabsan oo aad u weyn oo dhulka soomaaliya specially koonfurta soomaaliya waa beerale waa dhul beerale oo wabigii shabeelle iyo wabigii jubba saa u marayo ilaa buulaxaaw ilaa kismaayo iyo ka kor ilaa marka aad beledweyne ka soo jeensato ilaa luuqganaane jilib iyo jamaamo meel kasta wabigaasaa u maraya ilaa afgooy dhulkaasoo dhani waa dhul beereed wixii aad ku riddo ay ku soo baxayaan waqti yar soomaaliya waxay haysataa also webiyaasha naftooda malay laga soo saaran karo oo malay leh biyahoodana looga faa'iidaysan karo dhul beereedka soomaaliya waxay haysataa badda iyo bannaankaba shidaal buuxa gedo garbaare iyo buulaxaawo waxaa ku yaalla 2 ceel oo gaas oo wixii u dhiman ay aad u yar yihiin badda soomaaliya offshore ilaa hobyo ilaa nugaal ilaa iyo badda cas iyo badweynta indiya meel walba shidaal baa saa u ceegaaga ilaa meesha aan kenya isku haysan caruurtii dhulkaa barwaaqa sooranka u dhalatay soomaaliya waxay leedahay mining iyo diamond adduunyada waddan sidaa ah u dad yar oo nimcada haystaa aad ba ugu yar soomaaliya dadkii qaxoonti noqon lahayd maani waa dadkii qaxoonti u imaan lahaa siday horaanba ahaan jirtay soomaaliya dadkii asaga sadaqad la siin lahaa maahane waa dadka ayagu sadaqad dadka siin lahaay soomaaliya waxa kaliya ay u baahan tahay hanti wax walbo ku filan way haysataa waa inay dantooda ku heshiiso iyo hantidooda sida ay u qaybsan lahaayeen iyo sida ay isku hogaamin lahaayeen farriintaydu waxay ku socotaa dhalinyarada soomaaliyeed aniga iyo inta ila og waqtiga iyaga waa soo qaadan odayaalka ku shilaayo dhuusamareeb iyo kuwa baarlamaanka joogaana ayaguna waa sidoo kale waxaa lagu gorgortamaya oo lagu wada hadlayaa waa mustaqbalkiini iyo futurekiini maalin walba sidaad ugu dhimanaysaan ama jaamacadda laydinku ogolayn oo because madow baa ta 3 dhib ayaa qurbahayda ku haysata nin madow baa ta nin immigrantiyata waxaa taa kuu dheer immigrant iyo madowga nin muslimaatoo magac last namekaagu ama waa maxamed ama waa aadan ama waa cabdi ama waa cismaan intaa markuu jaamacadda la arka applicationkaaga hoos baa la gelinaya gabdhaha jaamacadda waa loo fududeeya because gabar lagama baqayo laakiin nin soomaaliya aad baa loogu dhibaa jaamacad inuu ka helo wadamada dad waay wiilashu isku dilayaan say wax u soo baranayaan mar alla markay jaamacad gaaraan ay dhaan high school haddaad noloshaad rabta gaari lahayd ayay jaamacaddii korojadii barashar madaxa laga saaraa waa system dadku dejisteen inaanay wax baran qofka madow ama qofka immigrantga ah ama muslimkaba inaan waxbarashada dalka taalla looga faa'iidaysanayo berri toole markay 100 arday ama 1000 arday oo Soomaaliya application ka qorato 2 iyo 3 baa loo ogolaadaa inta kalena haddii la siiyana lacagta inta laga qaataa galaaska lagu dhibaa oo ilgooniya lagu fiiriyaa oo 10 sax laga qaldan waa siyaasad qarsoon oo aan cidna ogeyn maanta waxaa la ii sheegay shalay waxaa la ii sheegay
xalay la ii soo wacay hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka hore 15 wiilkeeda jira ayaa teenagernimadii hooyadii iyo asagii buuq ku aragtay isbitaalka geeyay isbitaalka waqti yar waa laga qaaday isbitaalka la geeyay isbitaalka waalida la geeyay hooyadii waxa lagu yiri waqtigaad wiilkaaga la joogi lahayd way ku dhamaatay gurigaaga aad 1998 ilaa maanta gaala haysata waxaana laga dhigay oo meel uga xareysan yahay waxaana laga dhigay Guinea-pig waa sida alla ii sheegay Guinea-pig waxa xayawaanka inta meesha lagu ridaa saa u wareega oo jiirka weyna oo lagu dawooyinka marka dawo la soo saarayo ama la siiyo ama lagu mudo oo lagu soo taraygareeyo inta aan bini'aadmiga iyo daanyarada la siin inuu ku dhimanayo iyo inuu ku noolaanayo wiilka waxa lagu tastagareeyaa dawooyinka ay sameynayso dalka Holland maana waxa waa Holland waa Holland iyo Netherlands waa isku mid baan u maleynayaa Netherlands waa Holland saasan jeclay iyo ma ogin laba wadani anoo Europe ma soo marin mana garanayo but I believe so I'm sorry arrintaa inay isku mid yihiin baan u maleynayaa Netherlands iyo Holland maabkooda waligay ma fiirin marka waxa weeyaan wiilka halkaas ku jira 1998 labaatan iyo laba sano kahor ayaa isagoo 15 jira teenagerkii lagu bilaabay in hooyadii isbitaal waalinta la geeyo dawo lagu bilaabay hadda way dhamaatay hadda waxa la yiri marka ay hooyadu waxa tiri soo fiisad garayso wiilka inta la soo xiro wiilkeeda xiran baa loo keenaa because sidii dawadii ka daran loogu test garaynayay way u dhamaatay noloshiisa loomana ogola inay qaadato loomana ogola inay la baxdo waxa weeyaan waxa iskale dawladda Netherlands oo u haysata Guinea-pig dawooyinkay soo saarayaan inay ku taraygareeyaan marka waxa weeyaan hooyada iyo wiilkaana in loo gurmado oo reer Netherlands hooyada wiilka ilaa waqtiga uu ka xiran yahay la fiiriyo Soomaaliyeed aad baa loogu baahan yahay oo arrinta mar dhanbaan si gooniya warkeeda sugan hooyada waa la ii soo sheegay oo gabar baa ii soo gudbisay hooyada la xiriirtay laakiin hooyada wali ma aanan anigu war sugan kama hayo informationkooda dhan markaan arkalo waan ka hadli doonaa bulshaweynta waxaa fariintaydu ku socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed Maraykanka qofkaad rabtiin baa dooratiin Kanadana qofkaad rabtiin baa dooratiin meesha la yiraahdo Yurubna sidaas oo kalaati marar badan aniga caruurtaydu islama galna doorashada iyaguna qofkay rabaan bay doortaan anna qofkaan rabaan doortaa sida ayada dalka idinka iskale aniga iyo inta ileeg waqtigooda way soo qaateen garab istaaga kuna tashta doorasho qof iyo coda sida adduunka normalka ku jirto inaan helno future-keena iyo aayaheena iyo mustaqbalkeena aan ka tashano assalaamu calaykum nabadaha way sidaa taa aan kugu soo celiyaa habar live baa ku YouTube baan samaynayaa kugu soo celiyaa habar yar marka waxa weeyaan waxaan idin rajaynayaa khayr aad iyo aad u fara badan dhalinyarada Soomaaliyeed 30 sano aniga u yar ayaa dalkayga burbur waxaan wax ku soo bartay school free hospital free jaamacad free iyo scholarship free ayaa dalka Soomaaliya aanu ku soo barbaran iyo Soomaaliya nabada oo habeen iyo maalin aanu socono oo halkaan rabna aan aadayno oo haddaanu rabnana 12 ka caawaan soo jeedayno iduna aanay waxba noo sheeganayn idinkuna dalkii asaga weeyaan dalku isma bedelin waxa isbedelay dalka dadkii baa isbedelay dalku isma bedelin dalkan anigu ku soo koray weeyaan Soomaaliya isku day dhibkaan anagu marnay ama waalidkeen mareen inaan ariirtoona marin ee aad wax ka bedeshaan dalkana aad xoreysataan dalkana aad doorasho cod iyo qofa aad gaartaan
ood aftida iyo awoodda gacanta shacabka ay ku soo noqoto waadna samayn kartid 100 oday iyo dhowr 100 oday oo Kenya lacag u qaybsay ama carab lacag u qaybsay anna ima matalaan idinka mana imadan ma matalaan ka tashada future-kiina wassalaamu calaykum